addoon waxa weeye slave of Allah. Slave of Allahna ma jirto, waxaa jira kaliya servant. haddii aad ahaan leed slave waxaa ahaan leed markaa yani maad lahaan kari lahaynba inaad khalad samaysi ama aad salaada tukanba ama khasab bay kula inaad wax walba qabati. laakiinse maadaama aasan khasab kugu ahayn oo lagu yiri ikhtiyaar adiga go'aan leh naftaada inaad control karti, aad khalad ku dhici karti ama aad beenin karti ama aad sixi karti, kuwa saxana oo aaminana waxa weeye waa kabiliyeriga ma taqaaneen servant kuwa ilaahay weyneeya. laakiin say Soomaaliga waxay u turjumeen ama hadda xitaa loo turjumayba addoon alle xageed ka keentay marka taas way su'aashu. هذا القرآن كفرها هذا نقرن القرآن كأنا كنت سنة أنا متقنا إيش حاجة حرف كات كتر جمتة أدون الله هي أما إرجع إيش حاجة القرآن كفرها فربة سورة مريم فر أوكي سيبر وحنا كم معناه صدق أركي أنا متقنا واحد هذا آخرنا يسدن مرت عيد أنا فيرنا أنا وحكو ترجميس هي سورة المريم بعد سمعها سيبر هي عيد أنا لمبر كبارة يمكن لمبر كان بارة يعني سورة مريم متقانة مريم ما يعكل اللي كلها فيها عيد مقوسو قانا أوكي سقالتهم بالي very well عيد سقاشن يسدح عاد عيد سقاشن يسدح سيبر كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا وكها الرحمن أبدع سمها يا الرحمن سمها إلا آتي الرحمن عبدا ها أبدع سمها أبدع مركا أبدع باتري وحوي الدون كيغا يا أبدع مركا ميا أتو جميسا عيد نو لقبي الصومال كل لقبي إن كله هي بروايه هي qof walba oo samada jooga iyo arlida ama dhulka wuxuu weyneenayaa arraxmaanka naxariistaha weyneeyaha oo weyneenayaan servant weyneenayaan kuwa weyneeya kuwa caabuda laakiinse addoon ma aha marnaba addoon noqon mayso. af Soomaali ku sheeg ana af English makaadal ban af Soomaali waxa weyneenayaan weeye hay macnaha waxa in kullu naxariistaha weyneenayaan naxariistaha yani weyneenayaan waxa kuwa weyneeyay weeye waa dadka weyneeya kaafiriinta maaha qofku markuu Ilaahay aamino wuxuu ka mid noqonayaa kuwa weyneeya fiiri kor u qaadaya xusaya aayadda waxay ka hadlaysaa in kullu man fi samaawaati cid walba samada ku sugan arlada ku sugan ilaa aati arraxmaani cabda wuxuu imaanayaa raxmaankii Allah mataqaana asagoo oo addoon ah adiga waxaa dhahday waa maya addoon meesha Soomaali ugu sheeganay af Soomaali rabaa inaan fahmo af Soomaali waxa lagu dhahaa yani waxay noqonaysaa ereyga wuxuu noqonayaa marna kuwa weyneeya hay ku weyneeyay okay ma gaalada waxay weyniyeen Ilaahay bay weyniyeen gaalada ma weyneyn karaan waxa lagu yiraahdaa aayadda Soomaha baran 93 bal ka saar meesha mutaqaana gaalada meesha ka saarba ma dhigayso qof suurada gaala kama hadlayso badda aayaddan gaala kama hadlayso waxa lagu qof walba oo samada jooga aayadaha kooreyna maartay gaala laga hadlay aayaddan waxa ka hadlay walada wama yanbaghi lirrahman an yattakhidha walada إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا آيات مرت لقصوا هذلي مرت قال ذي مهو وإلهي سبحانه وتعالى أنس بين أن محل هذا ولد وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا أيضا بهاي اللي مرت قال ذلك هذا لين إلهي نحوير كل دمان تضحوا معنا إيكو الدون مرتوي معنا يعني محل تحت مرتي عظمة الله تبارك وتعالى مرتي هي معنا يبو إلهي سبحانه وتعالى ما يشوف شيء بل هذا قال ذلك كسر قال باشا آياتنا أتسوق قال تهدى أنسل إيجلنا قال ما يسقال وحكى وحلو يقول حتى قال آياتنا بس لإيجلنا هاي دبر نصه قالت
waxa lagu yiri محمد علي بالشيطان كسكنال ما shaydaanku waa iska lahaa hadda موضوع dhexda la gashanaysiin ilaa wuu مايا hadlay فيري موضوع waxaa tiri Ibrahim Hersi wuu hadlay quraanka ninkan Umar baa dhahay bal yarkeed buu ku dhahay مايا فيري fogaanba waxaad hadda ka hadlaysay ilaa ma waalna weynu miyir qabnaaye waa hal kelma bas labaha ka dhigin tobana ka dhigin waxaad tiri quraanka meel ilaahay adoon ku sheegay ma jirto baa tiri sheekhu wuxuu ku yiri bal aayada afur meel ma he 100 jeer in ka badan buu quraanku sheegay hadda 30 jeer baa lagu soo qoray xagga hoose maadaama aad luqada carabiga awood u lahayn aad ku qorto dadka comment-ka xagga hoose dhammaan way soo wada qoreen aayad kala duwan aayadda hadda sheekhu uu ku diray intu waa naafiya ma jirto yani in kullun ma jiro kulludu waxa la dhawaad ta'wiin waxay ciwad ka tahay jumladan ma jiro dhammaan wax alaala waxa ku sugan in kullu man isu idaafe ma jirto dhammaan waxa ku sugan samaawaadka oo toddobadii samaa iyo dhulkii walarda mithluhunna oo iyana toddoba dhula intaba ma jiro hadday jiraan istithna la keenay ilaa aati arraxmaani abada wuxuu u iman doonaa alle isagoo addoon ah macnaha malaa'igta samada iyo wax alaala waxa dhulka ku nool gaal iyo islaam marka qiyaamaha la gaadho in kullu man fi samawati illa aati arrahmani abda ilaahu iman doona isagoo adoon ah xataa hadduu gaal ahaayo diiday ka dhulka jooga marka ilaahay loo tago khiyaar male isagoo adoon ayuu imaanaya marka hatta quraanka wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun cibaado iyo adoonnimo iyo ilaahay inuu adoonna inaga dhigtay ilaa quraanka waabay ka buuxdaaye halkee adigu maartay mid kale markaad leedahay anigu carabi kuma akhriyo quraanka de quraanka hadan markii israa aayada fasir there is none in the heaven and in the earth but comes to Allah waliba to most maartay beneficent aayadan hadii maartay la rahmaan buu yiri but comes to most beneficent ay Allah as a slave يعني قرآن كودن وحلا لا وح قرآن لفسري مارتي لغة إنجليش لغة فسري إني slave هم بيشجعان عبدا بيشجعان هدي تلياني أنكو فسرنا إسنا عبدا بيشجعان هذه مركة هلكي وحكاسيين bal ma jawaabade hadda waxa weeye laba cod baad isku qabateen sidii ninkii bidda dhexda hay gashanay kolba ma taqaanaa jawaab haye waxaan slave ma aha meesha waxa laga hadlay slave hadda waxa ahaa qoladii bani Israa'iil markuu Fircoon gacanta ku qabtay oo waxa khasab buu ku haystay adigu laakiinse markuu Ilaahay ku dhahay ama waxaad u haysataa ikhtiyaar naftaada inaad adigu aad xarig Ilaahay ku dhignaati oo Ilaahay weynaysi oo u noqoti adeege yani servant al-abudi ama inaad ku kufurti gaari aad ka fogaatiba ikhtiyaar baad u leedahay choice okay marka ereygan baan isku haynaa abdaa ole arrahman waxa dhulka wax walbo samada iyo arladan jaara digoodba Ilaahay ama arrahmanka ay u wada adeegayaan see loogu adeegayaan adeega hadaba adiga maanta soo ma awoodi inaad Ilaahay ku kufurti oo beenisi haddii aad beenin kartid seed u adoon u ahaan kartaa translation ka laftigiis hadaan eegno waxay noqonaysaa marka inay si kala baxaan ma codmaal ba oo waxa international ba anu hadda ma garanay ka haystiin waan eegi karnaa laakiin servant buu soo bixi karaa slave buu soo bixi karaa waxa ku xiranta mar walba qofka bag maxaa lahaa waxa uu aasaaska ah uu ka adeegsanayo uu ka soo daliishanayo qaar baa markaa ka soo daliishanaya hadda matalan kale masjid al-aqsa kale qaar baa soo qoraya masaajidka fog qaarna waxa soo qorayaan toos Falastiin يعني waxa ku xirantay qofka soo turjumay ama fasiray quraankaas ee kitaabkaas waxa u salka ah saadaradeed ereygan ba hadda dhahdeen abda ayaa ah micnaheedu adoonkan waxa weeye waxa la sameeyay Soomaaliya sida aan adoon Ilaahay ugu nahnay sidii Fircoon isaga uu adoonsaday bani Israa'iil labadaas ayaa isbarbar dhigteen oo hadda run ahaantii aad u kala fog tafsiirka laftigiisa af carabiga haddaad eegtiin oo takhasuskiina carabi yahayba waad kala garan kartiinba inuu ereygu
ilaahay uu isticmaalay addoonkiisa su-aashaada waxaa cabda waaye addoonka ma soddon ikhtiyaar second buu aan leeyahay dhacay soddon ama second cali soddon second aan su-aashaada dhacay waxaa waaye addoonka ma ikhtiyaar buu leeyahay soomaa su-aashaada addoonka ikhtiyaar ma leeyahay yaan la hadlayaa hadda yaan la hadlayaa yaa soo galay dhexda iyadaan hadda kugu daray su-aashaada waa saa u mise hadda hadlaysid soo waxaa galay leedahay ninkii kumaan la hadlayaa horta hadda yaa ikhtiyaar ma leeyahay niyo hadda waxaan isku haynaa halkaa erey baan isku haynaa walaal ad warsame u yarkaadii cumar iyo ibraahim baan meeshii wada joognaa waxay dhaheen keliya iyaku qof walba waa eegi karaa cabdaca oo ah micnaheedu addoon ibraahim wuxuu isagu eegay translation oo isagu laftigiis kala soo baxa xaggaa uu dhahay slavekaas anigu kama hadlayay waxaan ka hadlayaa as a servantkan waxa weye qofku ikhtiyaar naftiisu control kara siduu ilaahay babalan qaadayba ama waad beenin kartiin ama way raaci kartiin idinkaa ikhtiyaarka leh laakiinse addoonka marka la isticmaalayo ereyga addoonka waxaad ka helaysaa marka laga waramaayo bani israa'iil oo ii kale leeyahay muusoo dadka ka soo qaba uu fircoon addoonsaday addoon uu ku haysto xoog ku haysto laba bay kala noqonayaan marku yara socda fiiri maxamedow شومرو هل سؤال هدي عبد ونقض مركز سيرف النقض خدم كانوا محين نقنايا ya مثلا خادم كانوا محين نقنايا khaadim wey خادم fiiri maxamedow fiiri aayadahan fiiri siyaaqeed markaa u dhaado وين مسكو عيار بولا نكنا fiiri maba noqonayso maaragtay meeshan servin ma noqonayso laana micnihii dhan maaragtay bedelaysa ma fahantay ilaahay wuxuu ka hadlay gaaladaasi ay u nisbeeyeen maaragtay walad bay u nisbeeyeen hadalka markuu soo socday aayadda waxay soo gaartay waxa waaye inuu ilaahay yiri in kullu man fi samaawaati waalardi waa dhammaan weyn jin iyo insi ku sugan arlada iyo samaawaadka dhammaan waxay u imaanayaan allah subxaanahu watacaala iyagoo addoommo ah aayadda sidaasa maaragtay ku cad waa maalinta yowm alqiyaamo weeyaan tamaam qofka asagoo hadduu oo macnaha ikhtiyaar oo leeyahay oo ku kufriya ilaahay tabaaraka watacaala diiday cubuudiyadiisii iyo inuu u noqdo addoon inuu u noqdo asagoo oo maxaa ku santaagayo addoonnimada mataqaana ilaahay subxaanahu watacaala inuu u hogaansamo oo muslim noqdo oo islaamnimadii qaato maalinta yowm alqiyaama wuxuu imaanayaa asagoo addoon oo daliil ah oo khaadic lilaahi tabaaraka watacaala ma fahantay aayadda maaragtay ay ka hadlaysaa aayaddana waxaa la fiirinaya de waxa waaye siyaaqii baa la fiirinaya adi ma fiirin maaragtay siyaaqii dhan ma fiirin waxa maskaxdaada ee ka keensatay waxaa dhahday maya macnaha meeshaan kuma jiro mataqaana wax addoon la dhahayo kuma jiro bal adi xaggee ka keentay cabdan inaan laga wadin maaragtay addoon xaggee ka keentay maxaa marjic ku ahday cidda u laabatay aad ka soo qaadatay yaa waaye maxamedow kusoo dhowow waxaa ii marjaca ah aniga tusaaleba aayadaha qur-aanka laftigiisa oo kuu sheegaya ilaahay inaad ikhtiyaar adigu aad u leedahay ba inaad caabuddo haddii aad ahaan leed addoon sida u ahaayeen bani israa'iil oo toos loo yidhi kuwaas baa addoon waa la addoonsaday ba yani waqaantaaba lagu dhigayba kuwaas ma bixi karaan ma dhigi karaan haddana marka yowm alqiyaama ikhtiyaar uu leeyahay miya qofka gaalka iyo dhammaan marka hadda adigu aad la baxaysay cabdallaahi addoonkii ilaahay baad soomaali ahaan turjumaysa addoonka aayaddan naga bixin ikhtiyaar uu leeyahay miya qofka ma markuu nool yahaa yowm alqiyaama ikhtiyaar uu leeyahay miya qofka ma waxaad moodaysaa aayaddan inay ka hadlayso yowm qiyaamaha way ka hadlaysa maxaa ugu hadli waysa oo hadda marka la leeyahay waxaa dhulka iyo arlada samadii arlada jooga markaas arladan la joogo iyo samada la joogo dhammaantoodba miyaysan ilaahay xuseen ma waxay khusaysaa kaliya aakhirada mar walba miyaysan khuseen maxamed cali waa iswareerininayo aayadda sax waaye maalinta yowm alqiyaama dadka waxay imaanayaan ayagoo ikhtiyaar lahayn ilaahay hortiisaan lagu xukumaya haddii aayadda meeshaas ooga har maxamed cali laakiin maxamed cali wuxuu leeyahay adduunka hadda aan saaran lahay maxamedow ma waxaa leedahay dad baa jiraan oo maaragtay ikhtiyaar leh oo u gambin karaa mataqaan xisaabta ilaahay tabaaraka watacaala wala xisaab kama hadlayso waxaa laga hadlayaa oo qofka in aad ilaahay isku dhiibtid dhamay maaragtay akhri hortaad ma taalo aayadda maxaa ku xigo bal fiiri waxa ka horeeya waxa ka dambeeya akhri siyaaqeeda akhri contextka ark saa u fahantid maxaa ka dambeeya ay in kullu man fi samaawaati waalardi ilaa aati arraxmaani cabda hey maxaa ku xigo لقد أحصاهم صح وعدهم waxaad leedahay yani qof
walba adduunkan jooga waxa weeye waa cabdallah qof walba iyo wax walba waa cabdallah saasaad leedahay soo maaha fiiri marka adduunka la joogo dadka u hoggaansamay allah subxaanahu watacaala waa addoommadiisii weyn waxa u hoggaansamay wadiyadiisii waana aqbalay okay kuwa gaaladana maaragtay way diideen waxay diideen hoggaansamkaasay diideen ma garatay maalinta yawm alqiyaama laakiin ma jirto wax ikhtiyaara la dhahay mataqaana qofna maaragtay uma gambin karo ilaahay subxaanahu watacaala la kulankiisii iyo maxaa la yidhahdaa xisaabtiisii iyo ciqaabtiisii kama baxsan karo qofka ikhtiyaar uma laha arrintaasi akhri maxaa ku xigo aayaddaas maxaa ku xigo laqad axsaahum wacaddahum cadda hee wa kulluhum hee waxaa ka hadlaysaa maaha akhri aayadaha waxa ku xiga iyo fiiri adda siyaaqa fiiri ereyganaan isticmaali lahaa cabdallah soo maaha meel kale ha aadan aayaddan maaragtay aan soo qaatay taas leh akhri laftigiisaan dul taaganahay ereygaa laftigiisaan dul taaganahay oo tiri waxa weeye addoon soo maaha cabdaa yani waxa weeye cabdaa ereygaas laftigiisa meel aan uga dhagaagana ma jirto okay weli waxaad ku turjumaysaa inay yihiin addoon soo maaha hadde macno kale maba laha intaas le weeyana ikhtiyaar maba laha ikhtiyaar hadduusan lahayn markaa miyaysan noqon lahayn ina dhammaanba markaa qof walba uu jannada galo ilan waxa weye ikhtiyaar maba lahaba inuu dembi ku dhaco ama ereygan actually marka hadduu qofku addoon ahaan lahaaba shaydaanka subxaana asaga geenayo qofkii rabo mataqaana jannuu geenayo kii rabana maaragta waxa waaye naartuu geenayo waana qofka mutaysta wey naar hadduu mutaysta naara la geenaya cumar oo dhegeyso waxaa laga hadlayaa adduunkan haddii aad addoon tahay addoonka micnihiisa waxa weeye exactly marka bani israa'iil iyaga la addoonsanay iyagoo raba inay ka tagaan ayaysan ka tegi kareen maanta markaad leedahay haddaba qofkan addoonkii ilaahay buu yahay shaydaanka waswaaskiisa maba kari karaba markaa إلا وحول بالله غيره ما بقى دقائق في الأمر كيسي ما بقى دقائق كربان كام فيري هكبودين أيضا هكبودين مالتي القيامة جوجناي مدة كبب بحسن لها ما فهمتي ما بتاعين مال أو متقانا قال كي مسلم دمان إنه هو إيمانا الضومي إنه هو إيمانا أيضا هم حكوا حكوا بس محمد aayadda waxa ku xiga aayaddan ku jirnaa maalintaas ilaahay waxa gidi loo yahay adeega loo yahay amarkiisa soconaya ma aha in adoonta waxa amarkiisa soconaya adeega loo yahay adeege maxaa adeegaysa maxaa sameynaysa yani wixii amarkiisi ayaa soconaya servant battle adoon in amarkiisa wuxuu yahay muxuu dadku ku amraya wala wuxuu ku amray wax laga hadlayaa adoon slave battery ana waxa dhawaad salaad iyo soon iyo cibaado iyo zaka iyo maxal yahay xajmi maalintii qiyaama Umar aka baxsan dooda waxa tiri slave laga hadli maayo salaad laga hadli maayo zaka slave baa adoon bad ka hadlaysaa خادم هو سيرفن وخادم وين اوكي محو سمينا مالتي يعني وحو سمينا معنا ما وحو سمينا معنا ما لها waxa way kaliya inaad si khalad ma yawa eray aan eraygiisa ahaan martaa isticmaalin cabdan ba meesha ku qoran af carabiga af soomaalina waxa waaye waa adoon weeyaan afka englishkana maxaa waaye Umar waxba ka baxsanin dooda waxaan kugu u soo koray meesha inaan dhahay adoon alle laga hadli maayo waxa laga hadlayaa adeege ama servant ama qof ku weyneynaya oo u dhagan nugle alle that's the point ha u leexan masalaad baa la tukanaya masakala maqla waxa laga hadli maayo aayadda baan ku dhex jirnaa aayadda baad kala soo dhex baxday oo tiri waxa weeye slave adoon abdaga adoon maaha ilaa haddaan kugu haystaa wax kale la kale maxamedow aniga ku fahmay ma waxaad leedahay waa adeegi ayaad adigu leedahay ku fasiraysaa sheekh cumar hagu ka leeyahay waa adoon ma inta farqiga idin dhaxay ma inta saa mustafa dhibka jiro waxa waaye maxamed cali oo farqiga ma isu golaab farqiga yaasan la yareysanin adeega waxa weeye qof ikhtiyaar haysta oo diidi kara oo hadhow marka la diido iqaab kala kulmi karto adoonkana waxa weeye maba diidi karaba sidii bani israa'iil oo ilaahay uga madax furo markuu Muuse u soo diray inuu Fircoon ka madax furo adoonsigoodii ku soo horta adoon af Soomaaliga waa erey jira oo loo macneeyo adoon uu jira caabudana waa la yiraahdaa af Soomaaliga
imika laakiin farqiga idiin dhexeeya midna waa sifo oo waa erey baad sifaynaysaa. imika anigu ilaahay addoon baanu ahay, waxaanay xagga kalena u adeegana waanahayo waxaan u adeegayaa oo fulinayaa oo xubnahayga iyo uurkayga iyo maskaxdayda intaba laga helayaa amarku rabbigay i faray oo waan qabanaya awaamirtii. marka ma sifo iyo magac farqiga u dhexeeya muxuu yihi? waxbaan ogay inay meel iskuguba imanayaan. ta kale sheekhu kaaga sii duwo wuxuu ku yidhi xaaladani waxay ka hadlaysaa wasfi gooniyo siyaaqa aayaadka xagga hore waxay ka hadlayaan maalinta qiyaame oo waa dhammaan makhluuqaadku rabbi abuuray oo dhan iyagoon tasarufaad iyo wax kalaba lahayn oo addooma ah ayay maalinta qiyaamo imanayaan. ilaa aati araxmaani cabda, iyagoo addooma ah oo aan kibir iyo isla weyni iyo kufri iyo kala qaatoona aan lahayn. kawdhe marka bal adigan dib kugu soo celinayaa maxamedowe, af soomaali aynu ku wada sheekaysanne bal godka dib u soo galo. sifada iyo magacu imika haddaan kuu bixiyo adiga cadceed baan kuu bixiyey. soomaaliga cadceed amba raaga waxaa loo bixin jiray ninka uurka hooyada ku raaga ee muddadii hooyadu ku dhalan lahayd aan ku dhalana dib uga yara dhaca. waana magac, waana sifo u noqon kara dee uurkii hooyadu ku raago raaga baa la yidhi. adigoo dheehaya dhabanle baa lagu yidhi cadceed. magacna wuu kuu noqon karaa, wasfina wuu kuu noqon karaa. bal haddaan dib kugu soo celiyey su-aasha magacu ma noqon karaa sidaa af soomaaligiina uu leeyahy, ingiliish buu ku leeyahy, af carbeedku ku leeyahy, ayi luqo kasta uu ku leeyahay. bal maxamedow muurka ka soo baxo farqiga u dhexeeya waa maxay? magacu marna miyaanu wasfi noqon karin iyo shaqo iyo hawl la qabanayo qofka lagu arkay, xagga kalena miyaa noqon karin magac erey bixin ah oo qofka ku naban ka baxay. السلام عليكم ما أنت مصطفى شوف عم بعض هذا الشيء وقايل رأسه دويسيو إن ربنا نذكر فهم سياسة أما مال اللي سكون فهمه هرتا أيضا وقتها ما شاء الله إن ماشي حدين وقتها ورا كنت هاي تود وقت كان الساعة مرنا وردنا يا أيضا أيو سوقاتي معناها أو سوقاتي أيضا أسرع جرنا يا لكن سب واحد كليا إرجع لجهل لا يعضون الله أيوم بلجهل لا مسوي حوي قفكو إنه أديجا نقطة إبراهيم مالكي قفين وقتها كفر مشارك كرتا إبراهيم كان كلام شيء يا سب شيخ مصطفى أنا شو عمره دعوة كلام بوتان وحن بقوابا إن عبدي وحى بالجودة قف عقل الله بالجودة قرآن قدرنا أداء في رسيد وقف عقل له كل بحسين عظيم محمد علي محمد كل بحسين يعني سيد وإحنا كلا صار له ولا باين يعني وقف عقل أنوار horta maxamed u daaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واد ما هتنتي يا صاحبتها والسلام. واد ما هتنتي يا صاحبتها إن شاء الله خير بأني لتشينا إياه ده بحسن ده محمد محمد baabkay ka bixi lahaa ما بحسن لك وحنا كوضع حديد قفل بس كسر قبصنا أيوه anaa kula hadlaya raalahow anaa kaa raali geliyey hadal maxamed calo وما هتنتي مستوى أنا أقول بنا الشيطان كسكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان كلنا كسكن أوكي erayga aan isku haysano meesha dhan ee ka socotay waxa weeye addoon alleh oo ah addoon af soomaaliya loo micneeyey maadaama af soomaaliga bidday wixii dhan laga hadlayay saa daraaddeed cumar bin marduuf ayaa isaga soo furtay suuraddan iyo aayaddan wuxuu usoo furtay inuu ku daliishado keliya in laga hadlayo addoon oosan laga hadlayn adeege ama qof isku dhiiba oo weyneynaya wixii kale ee aayadaha kale ka hadlayaan ama kuwii ka dambe ama kuwa ka hore we don't care waxba nagama gelin anaka ereygaas baan kala soo baxaynaa ilaahay haddii markaa aad hadda aad u leedihiin addoon baan u nahnay addoonku isagu khasab bay tan wax walba qabto addoon waxaa ahayd baan leeyahay again ereygan aad bay u kala duwan yihiin addoon iyo adeega isagu waxa weeye qof markuu adeego ajirkiisa ama mushaarkiisa ka helaya hadduu doonana diidaya waa siduu ilaahay balan qaadayna maalinta qiyaamana la hor istaaga haddii xitaan dhahnaba qiyaamaha oo la wada hor imaanayo adigoo ogol oo jirkaagii iyo cid walba malaa'igtii garbaha kaasan gidda ku wada markhaati furayaan oo se khalad lagu samaynayn adigoo ogol weliba
oo xitaa wax aad sanka cudur daalan karin ayaad cadaabtaada gelaysaa ayaa lagu yidhi not as a slave adigoo lagu khasbayo adigoo ooyayo dhahaya si khalad baa lagula dhacmay ma jirto you go as a servant adigoo ogol inay cadaab gashi saa daraadeed marka ciyaar maaha in layska dhaho maanta addoon iyo adeega isku mid bay noqonaysaa ma noqonayso fiiri maxamedow ani ilaa hadda maaragtay aayaddii ku dhaganahay waa isku daysay inaad ka baxsatid meeshaan u carartay waxaa dhahday ahli naar ikhtiyaar bay maaragtay ay ku galayaan maaragtay naarta taasna waxaa beeninaya maaragtay dhowr aayado maaragtay ka hadlaan ilaahay tabaaraka wa tacaala gaalada in oo loo jiidayo weli oo maxaa la yidhahdaa lagu tuuraayo naartaasi wasiiqa aladiina kafaruu ilaa jahannama zumara iyo aayadaha kale maaragtay ee tilmaamayaan ilaahay tabaaraka wa tacaala markuu leeyahay yawma yudacuuna ilaa naari jahannama daca aayadda waxay tilmaamaysaa in oo lagu tuuraayo oo lagu jiidayo mataqaanaa iyakoo diidan rabin mataqaana naartaas inay galaan ba malaa'igtii maaragtay ee qabanaysa ee ku tuuraysa maaragtay naartaasi marka hadalkaagii waxaa beeninaya aayadihii qur'aankii baa beeninaya ma fahantay ما وحاول خذوه فاعتلوه كدر إلى سواري بالضبط tusinaaya ma fahantay in oo la jiidaya aan ikhtiyaar lahayn ma fahantay marka aayadda weliba kugu taagan tahay maxamedow waxaa u qaadataa homework ahaan u qaado aayadda meel ugu baxsanaysa ma jirto kulli dhammaanna maaragtay gaalada iyo muslimka wuxuu imaanayaa asagoo addoon ayuu imaanaya waana maalintii malqiyaama laga hadlay aday serban haddaa ku magacaad macnaha waxa waaye serban de waa waxay u khidmeynaya ilaahay bay u khidmeynaya okay maxay ku khidmeynaya maalintii qiyaama xisaab baa loo taagan yahay janno iyo naar le weyane waxa loogu khidmeynaya maba jirto marka ereyga addoon kama baxsan kartid maxamedow hadda waxa waaye tan hadda aniga waxaa kuu siinaya maaragtay homework ahaan kasoo fikir aayado kale usoo raadi nimanka kale mataqaana ay culimo ay kuu yihiin maaragtay kafarada kale ee maxamed xasan iyo keyrkiisaba maaragtay weydii waxaa dhahdaa bal arrinta waa ku fashilmay caawe meel ii raadiya meel aan ku baxsaday ii raadiya ma fahantay maxamedow maxamed xasan la barqaantu waa ku siinanaa maxamed calow way nala fogaatay kelimadda cabd qur'aanka waxay ku soo aroortay 20-30 jeer wax ka badan iyadoo ficil mudaarica iyadoo ficil maadiya iyadoo ficil amara martay oo ilaahay leeyahay fa'budu martay iyadoo masdar ah iyadoo ismi faa'ila asalkeedana kelimadda luqada carabiga cabd waa slaveku mar basharku wuu is addoonsadaa oo hadda fircoon inuu reer bani israa'iil addoonsaday ina fircawna calaa fi lard wajacala ahlahu shiican wuxuu ka dhigay qabaa'il qaar wuu laayey raggoodii dumarkoodiina wuu nooleeyey isticbaad buu ku sameeyey wuxuu ku sameeyey istikfaaf fastakhafa qawmuhu yani caqligoodii buu dilay istikfaaf buu ku sameeyey dad ka hooseeya oo uu addoonsaday buu ka dhigay fa adaacuuhu way adeeceen isaga iyo kuwii ilaahnimada u sheegtay ila ilaahnibay qireeneen isagoon xaqu lahayn innahum kaanuu qowm faasiqiin baa layidhi markaasi waa falsafad ahaan waa dad aan ilaahay ugu talagelinaysa addoonsadaan oo ilaahay agtiisa ka sinaa markay qolo ka xoog badato ee ay is addoonsadaan macnaha aad ka hadlayso sidaa waa u sax kaana kamaynaan hadlaynin ee waxaynu ka hadlaynay kownkan ilaahay muxuu abuuray wuxuu abuuray isagana cibaado iyo alla in addoommo loo noqdo marka waa macno labaad luuqaadkana waa la kala ammaanaystaa ilaahay wuu nool yahay nolosha ilaahay la mid maaha nolosha biniaadamka biniaadamkuna wuu nool yahay ilaahay maarata wuu hadlaa qur-aankani waa kalaamkiisii inaguna waynu hadallaa isku mid ma nihin ilaahay waxbuu maqlaa inana waxbaynu maqalaa ilaahay waxbuu arkaa inana waxbaynu aragnaa ilaahay cilmi buu leeyahy
إننا علم بيلاني wax kastaynu leenahay inagu makhluuq baynu nahay ilaahayna waa khaaliqo waynu ku kala duwanni laakiin luqadii isku mid baa loo isticmaalaya sidaa daraaddeed addoomihii ilaahay qaarna way ka gaaloobeen oo way diideen oo shaydaan bay ayay raaceen oo halkay alla ka caabudi lahaayeen shaydaan bay caabudeen oo qaala shaydaanu lama qudiya al-amr inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum وما كان عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم مرت فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بصرخي إني كفرت بما أشركتموني بورنيا شركي أنا جاي شريك يشان إلهي عبادتي سي دين أبورتين تاكتكتين أنا عبادتي سيسين وانك قالوا ظالمين بان نقطتين حي لي إن الظالمين لهم عذاب أليم بورنيا من قبل يعني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم إن ضد مجران أدونمدي إلهي إن قيامها مركي أي ديدين إني ألا كو عابدان مالنت قيامة ألا كيني يجو الضومد دوليسن ها وعايدي شيخ كوك مارتي وكو سوقبتي إلهي الرحمن مارتي عبدا وح مجرو كنو السماوات كتدوضا يا أرلدا لما انتود مالنت قيامة ضدكو وحي إيمانيان وحي إلهي أما ها أقرادان أما يعني أقراني يجو دوليسن أو الضومة أو أمرك إلهي قادنا يبي إيمانيان مجران dad ilaahay uu adoonnimo ku amaanay oo iyagu aan ilaahay ka kufriinay adoonnimadii ilaahay u muujiyay ha quraanku ka buuxda nabi maxamed leeyahay israa wal mi'raaj markii samada la qabadsiinayay subhanalladhi asra bi 'abdihi balay ilaahay ka dheelmiyay ka gooreysiyay habeenkii maka martay subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla maka la kaciyo xalqay baytul maqdis kadibna uruuj baa lagu sameeyayo ليلة الإسراء والمعراج بعد عظيم أدوم بالله كشاج عبده قرآن كوي كبر حدا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم الرسول من أنفسكم عزيز عليهم وحي هذا عيد كلام دوني سوما هاين إن هو إلا عبد مرتي أنعمنا ينا مالك لي كنت الله نبي الله عيسى يسقوله ما هو إله وأدون إلهي النعمي تبارك وتعالى وحكم ذا قرآنك مالك لي إلهي وكو يري الضوامد صالحين تا نبي الله داود وكله ووهبنا لداود وسليمان ووهبنا لداود يعني سليمان نبي الله داود حنسيني ويل سليمان لا يرى هذا بانو مارتي وهبيني نعم العبد وحيري الضون وحا ugu wanaagsanaaday نعمة وفعل يعني مادي جامد متصرف معه مضارع iyo أمر iyo kama yimaadaane مارتي مادي غاسبا كيماده وحن سيني نبي الله داود سليمان بان وهبيني محوها نعم العبد الدون كي ugu wanaagsanaabuha hada ilaahay ba adoon ku sheegay nabi allah Suleymaan sidoo nabi maxamed ba ilaahay adoon ugu sheegay sallallahu alayhi wasallam nabi allah Ciise adoon ugu sheegay innahu awwab maxaa yeelay wuxuu ahaa mid noqosho badan oo ilaahay u noqosho badan adoonnimo iyo khuduuc iyo khushuuc ilaahay si duleyn badan markale nabi ilaahi alayhi salatu wasalaam ayub markii 18 sano iyo 6 bilood xaafid ibn kathir xadiiskaasina waa saxiix nabiga laga wariyay intii ay qaadatay imtixaankiis markii ilaahay uu niqamadii iyo dhibtii uu dheef ugu bedelay oo ilaahay bedelay oo ilaahay tabaaraka wa taala maartay mar waqtiyada kamida ba xaaskiisa ba nin khaldan bay u keentay oo shaydaan oo iska soo dhigay qof oo yiri waxaan daweynayaa nabi ilaahi ayub wuxuu u dhaartay xaaskiisa in uu maartay jeedal u la dhaco boqol ulood baan ku dhufanaya cadhadii uu ka cadhooday yani ibliis inay u keentay iska soo dhigay qof caadi ah si ilaahay tabaaraka wa taala dhaarta iyana adoon saalixada bay hedo isaga ku hadhay gabadh aad u qiimo badan bay hedo ilaahay maarta tabaaraka wa taala markii ilaahay uu caafimaad siiyay waxa lagu yiri wa khud bi yadika dakhsan balina fadri bihi wa la tahnath inna wajadnahu sabira ni'mal abd innahu awwab nabi ilaahi ayub alayhi salatu wasalaam qaado
burka waxaa la yidhaahdaa maadaama dhangadihii ay maaragtay muuminadan dhib yeelayaan ilaahay baa maaragtay ka kor yeelay si uu dhaartiisiina u fuliyo ilaahay aayad buu keeno wuxuu yidhi qaado yacni bur ka samaysan caws wax yacni maaragtay sida dareentoo kale qofkii yaqaan baa yaqaana bur ama maxaan ku dhaha duur wax isku dhegan oo sidii ulo dhuudhuuban ah oo maaragtay loo malayn karo inuu ilaa 100 yahay intii uu ku dhaartay marka diqfi kaas baa la yidhahdaa kaa taabka buuxinaya ee burkaa qaado fadrib hal mar saa ugu dhufo bihi isaga walaa taxnath maadaama aad dhaaratay dhaartaadiina ha ku dambaabine fuli iyadiina waa laga fuzeeyey tabaaraka watacaala markaasaa ilaahay wuu ammaanay wuxuu ku ammaanay nabiyullaahi ayuub innaa wajadnaahu saabira waxaanu helay isagoo aad u sabir badan nicma alcabdu buu ilaha yidhi addoon waa kii ugu wanaagsanaa maxaa yeelay innahu awaab waa mid noqosho badan marka dadkan ina dhegaysanayaa si ay doodeennii aan u soo afjaro adigana aynu meel isugu nimaadno wax dhiba male addoonnimadu bini aadamku is addoonsadaa waana shay xaaraana oo bini aadamku ilaah cid aan ahayn in addoommo loo noqdo waa xaaraan hadda yahuuddu waxay rabaan inay falastiin addoonsadaan adduunka caddaanka ka taliya waxay doonayaan afrikaankan iyo in maaragtay dhasha iyo waxyaabo badan loo diido resource-kooda la qaato oo si dadban loo addoonsado waa lays addoonsadaa xilliyadii la joojiyey tradekii addoonsiga xeebaha afrika oo dhan dad maaragtay afrikaana inta laafdubaba carabaha iyo suuqya la geyn jiray oo america iyo UK iyobaa dadkaa laga iibin jiray slave tradeki waa la garanaya iyo taariikhdu soo maray iyo maaragtay in la mamnuuco adduunku isugu tegey absolutely islaamku iyagoo dadku addoomo badan leeyahay buu yimi maaragtay inuu xal keeno oo maaragtay addoomaha la xoreeyey buu islaamku u yimi oo qur'aanka o dhan bay ku taallaa hadduu qofku ama dhaarto ama uu reerkiisa bil rabadaan u tago ama uu dambaabo ama uu xaaskiisii maxaa la yidhaahdaa dihaar ku sameeyo ama uu qof dilo ama uu yacni dembi kasta oo cadiima oo qofka ka dhaca oo markaa qisaasaanay ka waajibaynin ilaahay wuxuu maaragtay keenay in addooma la xoreeyo in addoomaha la xoreeyo si dadku u xoroobo bal jannada ilaahay wuxuu furaba uga dhigayba markii diinta dadku ay fahmeen in addoomaha la xoreeyo faku raqaba baa layidhi yani falaqtaxama alcaqaba war dadku albaabka geedka jannada kaga xidhan ma iska furaan waa maxay geedkaas ama albaabka jannada ku xidhan la iska furaya ilaahay wuxuu yidhi maaragtay wamaa adraaka ma alcaqaba waa maxay maaragtay albaabka jannada kaga xidhan waa faku raqaba baa layidhi in dadka ay addoonsadaan aan la ogolayn inay maaragtay sii daayaan oo xoreeyaan faku raqaba markaasaa sifaadkiina lasii sheegay aw idcaamun fi yawmin dii masqaba أو يتيما ذا أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين إلى آخر الآيات مركا waxaan ku gabagabaynayaa qolkanaad waa lagu raagay arrintuna waxay u baahan tahay dadku cilmiyan inay maaragtay inay kala faa'iidaystaan addoonnimadu midna waa ta ilaahay ee ku dhisan in ilaahay la adeeco qofku ilaahay uga dhow yahay waa habka uu cubuudiyada u xaqiijiyey oo nabiyullaahi nuux iyo ambiyada o dhan baa ilaahay uu ku sheegay addoommo inay ahaayeen addoommo ilaahay u dhow tabaaraka watacaala nebi maxamed waxa uu fadliga ku helay sala allahu alay wasalam cubuudiyada isagii ilaahay u dhexeeya waa axadka ugu yani xaqiijinta muxuu khayrulkhalqi illah ku noqday lianna cubuudiyadiibuu ayuu xaqiijiyey yani addoonnimadii buu ka soo baxay marka mar kasta oo qofku addoonnimada ilaahay u dhowaado waa mar kasta oo ilaahay agtiisa uu darajo uu ka gaadhayo aadaanka marka la aadaamo allahuma raba hadihi dacwati taama wasalaati alqaa'ima aati muxamadan alwasiilata walfadiila wabcathu maqaamun maxamuud ilaahay meel uu mahadiyaabuu ilaahay addoonka ah markaasuu odhanayaa waa wasiilo iyo maqaam addoon ilaahay jecel yahay uu siin doono waxaanan rajaynayaan anagu noqon doonee duceeya marka aadaankii iyo la sameeyo marka addoonnimadu midna waa taas ilaahay addoonka u dhaxaysa oo waa cubuudiyo
hirgashay oo xaqa midina waa addoonnimo ay bini aadamku keeneen oo shareecadu tiri ha laga baxo daraba allahu mathalan rajulan fiihi shurakaau mutashaakisuun warajulan salaman lirajul warajulan salaman lirajul hal yastawiyaani mathala buu ilahay yidhi macnihi ilaahay wuxuu yidhi dad bini aadana oo qof addoonsanaya oo hadday doonaan 10 nin ay wada leeyihiin oo dhibaataysan iyo nin qura oo qof quri leeyahay axad quri leeyahay axadkaasina waa alle warajulun maartay salaman lirajul ilaahay baa mahmahay inay bini aadamkiisa addoonsadaan iyo in addooma alla noo noqdo tee fiican in ilaahay keligii addooma loo noqdaa fiican waana tuu ilaahay kownkan muslimka u keenay inaynu oo saxaabada loo keenay yani ribciya ibnu caamir maartay qataada yani maartay abu qataada ribciya ibnu caamir maartay saxaabigii jaliilka markii loo diray rustum ee yidhi maxaad doonaysaan waxaanu doonaynaa buu yidhi an nukhrija maartay cibaadata alcibaad in addoomahan isgumaysanaya gumaysiga laga saaro oo u saaro ilaa cibaadati illahi waxda ilaahay keligii in la caabudo wa min maartay diiqi dunya adduunyada ciriirigeeda in laga saaro ilaa sicatiha loo saaro wa min jawri aladyaan nudumta bani aadamku sabaystay ee bani aadamku isku dulmayaya inta dadka laga xoreeyo in ilaa cadli islaam loo saaro marka inahaas baan kusoo gebagabeynaya waana xilli dambe sheekhana xilli dambe u tahay bal ilaahay ha idin barakeeye aan kala faa'iidaysano waana idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu